السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan darsiga toddobaad ee koorsadii aan ku baranaynay ku hadalka afka Carabeed. darsigan uu ka duwan yahay duruustii hore. waxaanu bedelnay kartooniska aan samey jiray oo aan saari jiray luqadda Carabiga. waxaan ku bedelay kartoonis ay sameysay shirkadda Clear Pictures. waxba ayaan ka hor dhicin daawasho wacan. انتظراني أنا قادم معكما. kartoonkan marka xoogaa wuu socod yar yahay wuxuuna u wacanaa kartooniska kale ka tagayo yani wuxuu jilayaa qof socod gaaban oo ceeb iyo wax badan ku sugan yihiin markaas wuxuu yidhi intadirani isuga ana qaadimun macakuma waan idinla socon lahay isuga إذن هيا أسرع. midii kale u jawaabtay waxay tiri idan haddaba hay yasrac soo degdeg oo na soo gaar waxay socodka gaaban na soo gaar saasay marka waxa weeyaan ugu dhawaaqday ها أنا أحاول. kadib waxay ugu jawaabtay tii haa ana uxaawil weliba codkeeday bedelaysaa waxay iska dhigaysaa qof xoogaha niyad jabsan haa ana uxaawil waan isku dayaya ayay leedahay لا يمكننا أن ننتظرك أنت بطيء جدا. kuwii kale way ku jejeeseen wuxuu yidhi laa yumkinuna suurtagal inooma aha inaan ku sugno anta badii'un jiddan aad ayaad u socod gaabantaa badii waxaa la dhahaa qofka socodka gaaban جدا. كيف حالك يا عم مصباح؟ kadib waxay u imaadeen adeerkood ay u imaadeen ayaga waa caruuray jilayaan marka adeeray u imaadeen waxaa la weydiiyey adeerka marka misbaaxa la dhahay kayfa xaaluka yaa cami misbaax xaalkaagu waa sidee adeer misbaaxu saasee li جئنا كي نستمع لحكاياتك الجميلة. kadib tii koowaad ayaa hadashay waxay dhahday ji'naa waxaan u imaanay nastamica si aan u dhegeysanno lixikaayaatika aljamiila sheekooyinka aad u qurxan sheekooyinkaaga aadka u qurxan si aan u dhegeysanno ayaan u imaanay أهلا بكم يا فوانيسي الصغيرة. أنا أيضا اشتقت لكم ولنوركم الجميل. أين صاحبكم ضياء جميل الابتسام؟ marka wuxuu yidhi ahlan bikum soo dhowaada yaa fawaaniisiya sagiira soo dhowaada fawaaniisteydii yaryaraayo waxaan dhan fawaaniis waay markaa midba magacuu leeyahay wuu soo dhoweeyey markaasuu yidhi ana aydan anigu sidoo kale ishtaqtu lakum waan idiin hiloobayo waan idiin xiisay walinuurikum aljamiil iyo nuurkiinnii aadka u quruxda badnaana waan u xiisay laakiin hal qofaa maqani ayna saaxibukum diyaa saaxibkiina diyaa ah waxaa halkoo galay jamiilul ibtisaam dhoola caddeyntiisu aadka ay u qurxaneyd xaggoo galay saasuu yidhi تقصد بطيء الأقدام. marka way ku jeejeeseen waxay leedahay tan koowaad waxay leedahay taqsidu ma waxaa ula jeedaa badii'ul aqdaam tii socodka gaabneed ma ula jeedaa ألم أطلب منكما أن تنتظراني؟ iyadii ay imaadayoo hufsana soo daashay markaas waxay dhahday alam atlub minkumaa miyaanan idinka dalban labadiina an tantadiraani inaad u sugtiin miyaanan idinka dalban saa ayay ku dhahday لو انتظرناك لما وصلنا اليوم. waxay ugu jawaabtay low intadarnaaka haddaan ku sugi lahayn lama wasalna alyawm maanta maba soo gaari lahayn beritaa imaan lahayn ku dhaha أجل فأنت لا يمكنك الجري مثلنا كنت ستؤخرنا. tii kale tii ugu yareeda hadlays waxay leedahay ajal haa fa anta laa yumkinuka adiga suurtagalkuuma aha aljaryu mithlana sidii annagoo kale inaad u socoto kunta satuakhiruna haddaan ku sugi lahayn waana dib dhegi lahayd kunta satuakhiruna waana dib dhegi lahayd marka saasay ugu jawaab إذن لن أذهب معكما إلى أي مكان بعد الآن. way xanaaqda markaasay tiri idan haddaba lan adhaba macakuma idin raaci maayo ilaa ayi makaanin meel idin raaci maayo bacda alaan hadda kadib meel aan idin raacaya ma jirto way xanaaqda marka نحن لن نأخذك معنا بل markaa dood ayaa imaaday waxay dhaheen naxnu lan na'khudaka macana anagana meel aan ku wadayna ma lahan naxnu lan na'khudaka adigana ku wadi mayno mana raacaysid macana anaga la jirkeena بل أنا الذي لن آتي معكما. iyadana xanaaqday waxay tiri bal ana alladii lan aatii macakuma iska daa anaanba idin raacin oo waxaa weeya maanta kadib dib idin raacin waa la xanaaqa marka هذا أفضل. marka waxay dhahay hada afdal saasaa wanaagsan meel ha noo raacin waa la xanaaqa marka
مهلا مهلا يا فوانيسي المضيئة، أخبروني ما المشكلة؟ markaasuu wuxuu yidhi mahlan mahlan odayga inuu xalliyo isku dayaa wuxuu leeyahay mahlan mahlan ukaadii usuga dagaalka joojiyaya fawaaniisi almudii'a faynuusyaasheedii ifayow waa kaa joojiya dagaalka akhbiruuni ii sheega mal mushkila maxaa dhibaatada jirta ii sheega طلبت منهم أن ينتظروني لنأتي معا فتركوني وقفزوا سريعا وأنا لا أستطيع اللحاق بهم. kartoonkii laga soo tagaa wuxuu leeyahay dalabtu minhum waxaan ka dalbay an yantadiruunii inay isugaan lina'tiya macan si aan u wada imaano fatarakuunii waa iga soo tageen waqafasuu weyne soo boodboodeen sariican ayagoo degdegaya wa ana laa astadiicu anigana awood uma lihi allixaaqa bihim inaan haleelo. لا عليك يا ضياء، فما تراه في نفسك عيبا قد يكون هو ما يميزك. odayg marka inuu qanciyo isku daya laa calayka wax dushaada saaran ma lahu yidhi yaa diyaa marka faanuustaana dayaa la dhahaa famaa taraahu waxaad u arkayso fii nafsika nafsadaada cayban ceeb qad yakuunu wuxuu ahaanayaa huwa maaga ma yumayisuka wax dadka kaa sooco oo aad gooni la noqoto ayuu ahaan karaa. saasaaba dhici karta waxaad ceeb u aragto in dadka ay kaa soo saaraan oo ummadda aad uga dhex muuqataa dhici karto. saas العيب يكون ميزة؟ marka way isyaabisay alcaybu yakuunu mayisa maceebaa noqonayso wax ummadda kaa sooco saas idhaah. هل هذه فزورة يا عم مصباح؟ hal haadihi tan maxaa kala jeedaa faazuura hal xiraali ya camu misbaax adeer misbaaxu arrintan maxaa saasaa kala jeedaa. هل تقول هذا لتخفف عن ضياء يا عم مصباح؟ tii kalena waxay dhahday hal taquulu haadaa arrinkan waxaa u leedahay litukhafifa can diyaa si murugta aad uga yarayso uga khafiifiso diyaa ya camu misbaax adeer misbaax. أبدا، هذه هي الحقيقة. ما رأيكم أن أحكي لكم حكاية لتفهموا ما أعنيه؟ marka wuxuu yidhi abadan ha ka yaabin saa kalama jeedo intaa sheegteen kalama jeedo haadihi hiya alxaqiiqa tan aan ka hadlayo waa dhab. marka ma ra'yiguna waa maxaa an axkiya lakum in aan idinkaaga sheekeeyo lakum adinka xikaayatan sheeko litafhamuu maa acniih si aad u fahantaan waxaan ula jeedo. نعم، احكي لنا حكاية. نعم، هيا يا عم مصباح. احكي لنا حكاية. marka waxay dhaheen nacam haa ixki lana alxikaaya inoo sheeka ii sheeg nacam haya yaa cam misbaax bilow ixki lana alxikaaya sheekada inooga sheekay. إذا فلنصلي على النبي في البداية ثم نبدأ الحكاية. markaas wuxuu yidhi idan haddaba falnusalli cala annabiyi annabiga ku sallino fi lbidaayati marka hore uma nabda'u alxikaaya kadib ayaan bilaabaynaa sheekada. اللهم صل على محمد صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. dhammaantood marka nebiga ayay ku salliyeen asagana sheekada ayuu bilaabay. في قديم الزمان وفي إحدى البلدان كان يعيش الكثير من السكان، وكان لهم أنوار وألوان وضوء شديد اللمعان، وكان بينهم فانوس صغير ذو قلب كبير وزنه خفيف ونوره ضعيف. وفي أحد الأعياد أعلن أمير البلاد عن مسابقة مثيرة وحفلة كبيرة. marka wuxuu yidhi fii qadiimi zamaan waqti hore oo laga soo tegay iyo wafii ixda albuldaan magaalooyinka mid ka mida kaana yaciishu waxaa ku noolaa alkathiiru min asukaan dad badan ayaa ku noolaa wa kaana lahum dadka waxaa u sugnaa anwaarun wa alwaan nuur iyo midabo nuurar badan iyo midabo badan ayaa u sugnaa wadow-un shadiid iyo iftiin aad u daran lamacaanun aad u ifaya lamacaanku waa marka birbiriqa iftiinka birbiriqa ayaa loo yaqaan. wa kaana baynahum dadka waxaa ku dhex sugnaa faanuusun sagiir faanuus yar ayaa ku dhex sugnaa duu qalbin kabiir qalbi weyn u saaxiiba wasnuhu khafiif wasankiisu aad khafiif u yahay oo yacni caato ah wa nuuruhu daciif nuurkiisuna daciif u yahay. وفي أحد الأعياد عيدها من كمذا أعلن أمير البلاد ننكي مامولي ودنك أيا إعلامي عن مسابقة ترتن كبيرة عن مسابقة ترتن مثيرة سامين وحفلة كبيرة حفلة أدوين. يعلن أمير البلاد
عن مسابقة يختار فيها فانوسا واحدا ليكون الفانوس الرئيسي بباب القصر. marka waxay akhrinaysaa amiirka wuxuu iclaamiye oo boor ku qoran. waxaa ku qoran yuclinu amiiru lbilaad can musaabaqatin yakhtaaru fiiha faanuusan waaxidan yakuuna alfaanuus alra'iisiya bibaabi alqasri. oo laga wada madaxweynaha wadanka wuxuu iclaaminayaa can musaabaqatin tartanka oo yakhtaaru fiiha uu ku dooranayo faanuusan waaxidan hal faanus faanuuskaasoo yakuunu ahaanayo alfaanuus alra'iisiy faanuusta ugu weyn bibaabi alqasri qasriga albaabkiisa lagu dhejinayo. xalqadan waxay ku egtahay halkaas. xalqadu way sii socotaa, sheekaduna way sii socotaa. waxaan ku dhammaystiri doonaa xalqada soo socota insha allah. waxaan sameynay waqtigoo cariiri awgii khamiis iyo jimco ayaan soo geli doonaa. saa ula soco. marka intaan xalqadii 8aad ku kulmayna waxaan idinkaa tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.